Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maanta oo aynu ku soo qaadan doono kulamadii ugu xiisaha badnaa ee laga ciyaaray horyaalada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee laga qoray suuqa kala iibsiga maadaama food inagu soo hayo inuu furmo islamarkaana uu dhammaado horyaalada caalamka. Haddii aynu ku bilowno kulamadii xalay laga ciyaaray horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska kaasi oo marayo heer gabagaba ah. Kooxaha Chelsea iyo kooxda Brighton Hove Albion ayaa xalay fooda isdaray waxaana guul muhiim ah gaartay kooxda uu hogaamiyey macallin Mauricio Pochettino taasi oo weli rajo ka qabta inay kasoo muuqato xil ciyaareedka soo socda waxa loo yaqaano Cup Europees ama koobabka ee laga ciyaaro Yurub sida Champions League, Yurub Liigaha iyo Conference League waxayna ku haminayaan inay heli karaan wax loo yaqaano Yurub Liigaha. Chelsea waxaa bandhiga goolasha u bilaabay xiddiga lagu magacaabo Cole Palmer kadib waxaa xajisay xiddiga lagu magacaabo Nkoko halka kooxda macallin De Zerbi ee Brighton goolka madiga ah uu dhaliyay xiddiga lagu magacaabo Daniel Welbeck. Ciyaartaas ayaa waxay kusoo dhamaatay mid guusha ay kusoo qaadatay kooxda Chelsea ee Blues. Dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford kusoo dhaweysay kooxda macallin Eddie Howe ee Newcastle United ayay ku bilaabatay si adag oo koox waliba ay ku dooneysay inay guul muhiim ah ay kaga laabato islamarkaana ay qaadato kooxda Newcastle ee macallin Eddie Howe. Balse macallin Eddie Howe iyo wiilashiisa garoonka Old Trafford way dadaaleen balse dhan waliba ay kaga fiicnaan kooxda United-ka balse guusha waxay raacday macallin Erik ten Hag iyo wiilashiisa kooxda Manchester United. Bandhiga goolasha kooxda Manchester United wuxuu bilowday daqiiqadii 31aad waxaana uu dhaliyay xiddiga da'da yar ee Kobbie Mainoo. Xiddigan oo islamarkaana ka yimid akademiyada kooxda Manchester United wacdaro baana ka dhigaya kooxda koowaad ee Old Trafford. Waxaa xigsaday xiddiga lagu magacaabo Amado Diallo 57 daqiiqo halka kooxda Newcastle United ayadana ay la timid hal gool oo keliya wuxuuna u dhaliyay Gordon. Waxaa saddexeeyay Hojlund 84 balse Lewis Hall ayaa 90 daqiiqo waqtiga dheeriga lagu daray 2 daqiiqo ayuu kooxdiisa wuxuu u keenay gooshiisii labaad balse ciyaarta waxay kusoo ilaatay 3-2 oo ay guusha ku raacday kooxda uu hogaamiyo macallin Erik ten Hag. Si kastaba ha ahaato United-ka ayaa iyadana rajo ka qabta inay hesho wax loo yaqaano Conference League iyo wax loo yaqaano Yurub Liigaha. Yurub Liigaha way adkaan doontaa inay hesho maadaama kooxda Chelsea ay kaga horeyso balse Conference League ayay u dagaalamayaan. Kulamada kale oo xiisaha badan ee laga ciyaaray horyaalada caalamka sida horyaalka Spanish Liigaha Rayo Vallecano ayaa waxay kulan xiiso badan soo dhaweysay kooxda Granada. Ciyaartaas ayaa waxay kusoo dhamaatay 2-1 ee Granada loogu adkaaday. Sevilla guuldarro 1-1 kala kulantay kooxda Cadiz. Getafe 3-0 waxaa uga adkaatay kooxda Atletico de Madrid. Celta Vigona 2-1 waxay beerka u gelisay kooxda Atletico Bilbao. Liga 1 dalka Faransiiska waxaa ka jiray 2 kulan. Paris Saint-Germain oo aan ognahay inay hore u qaaday horyaalka France Ligue 1 ayaa waxay 2-1 uga adkaatay Nice oo ay gurigeeda marti ku ahayd. Reims 1-0 waxay uga adkaatay Marseille. Kooxda Juventus waxay qaaday koobka loo yaqaano Coppa Italia waxayna 1-0 uga adkaatay kooxda Atalanta. Intaani waxay ahaayeen kulamadii ugu xiisaha badnaa ee laga ciyaaray horyaalada caalamka. Intaas ku maqli doono ama ku kulmi doono barnaamij la mid ah waxaan idinkaga tagayaa daawadayaal sidaa iyo amaan Allah.